صباح الخير صباح wanaagsan dadkana dhageysanayo feenustu waxay tartaa waxyaabo aad iyo aad u wanaagsan adduunka waxaa la isticmaali jiray markii hore feenusyo iyo waxyaabo kale laakiin hadda xilliyada dambe waxaa soo baxay leerar iyo laambadooyin oo aad iyo aad wax u anfacay kuraastu waxay ahaan jireen waxyaabo cusub dadka marka hore waxay ku fadhiisan jireen alwaaxyo iyo waxyaabo la toltolay ama la sameeyay telefoonada markeeda hore ma jiri jirin dadku waxay isticmaali jireen taar iyo waxyaabo noocyo badan leh hadda laakiin adduunka waxaa soo baxay telefoono aad iyo aad loo isticmaalo iyagoo noocyo fara badan leh bini'aadanku markeeda hore waxay isticmaali jireen kobo iyo kobo laga sameeyay saanta geela iyo waxyaabo xoolaha laga toltolay laakiin hadda xilliyadan dambe waxaa soo baxay kobo nooc leh oo dadka ay isticmaalaan kuwaasoo aad iyo aad ay bini'aadanka ugu heleen korontada waxay tahay waxyaabaha bini'aadanka aad iyo aad ay u isticmaalaan waxaana arkaysaa hal guri ay ku xiran yihiin ilaa iyo hal qol ay ku xiran yihiin ilaa 20 koronto taasina waxay ka mid tahay horumarka ay dadku ay gaareen leerku waa arin aad iyo aad ay dadku uga heleen laambaduna halkii laambadani waa laambad aad u yar laakiin leerkay bixinayso waa leer aad u weyn kaamana cunayso koronto fara badan iyo shidaal fara badan waa mahadsantiin